السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. maanta waxaan wadaa qiso aad iyo aad u xiiso badan oo ka duwan qisooyinkii hore. waxaan jeclaanahay in aad iyo aad dhigin oo furtaan oo dhageystaan qisada sida ku bilaabda. waxaa jira dalalka dibadaha ama dalalka la jeclahay in numberka 911 loo adeegsado gurmadka degdega ah. Where are you, ma'am? 238 Helen Avenue. I think we just know. Ma'am, calm down. What's going on? Some people broke into our house and showed all his money. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Where are you? 238 what? Avenue. Avenue Road? Yes. In Newmarket? No, Markham. Avenue Road in Markham? Yes. 238 Avenue Road. Yes. Can you spell the name for me, please? Dad? Ma'am. Hello. Hello. Yes. Ma'am, I need to know your address. Avenue Road. Can you please spell it for me? 238 Helen Avenue. My dad just went outside screaming. Ma'am, can you spell the street address for me, please? H-E-L-E-N. Ma'am, you need to speak. Okay, I know you're upset. I need to know your address, okay? You need to spell it for me. Helen, H-E-L-E-N. Okay, and so it just broke in? So it broke in and I heard shots, like pops. I don't know what's happening. I'm tied upstairs. And I think my dad went outside and he's screaming. Okay, you're upstairs? Do you think someone's still in the house? I heard them leave. I don't know if they're still around. Okay, are you safe? Can you lock your door? Are you upstairs? I can't. I'm tied. My hands are tied. You're tied? I had my cell phone in my pocket. Someone invaded your home, ma'am? Yes. You heard gunshots? They had guns and they were holding me at gunpoint. Okay, just calm down. Okay, I'm on the phone with you, okay? Please, that help. I think I hear my father screaming. I don't know what's going on. Are you injured, ma'am? No, but I heard pops and they took my parents downstairs. Yes. Okay, just take a deep breath, okay? We're going to send ambulance and police here as soon as possible, okay? Can you stay with me? I am. I'm going to stay on the phone with you, okay? Yeah, but Dad, he's outside on the street. I don't know what's happening. I can't hear him. waxaa soo qaraacina waan inan ooyisa oo yar oo leh naga soo gaadhay oo ooyisa kadib hadalkeeda wala fahmi waayay kadib khaliyaad waxa laga fahmay adreeska deegaanka ay ku dhaasay degdeg nooga sheeg kadib way sheegtay inantireed adreeska deegaanayeen askari si degdeg u yimaadeen xaafadii kadib waxa la arkay inantireed caadiya halka hoose markii loo daadegay kadib waxa la arkay hadana labadeedii waalid oo meelkii ku jiran dhiig meel kasta u buuxiyay nasiib daro xilli xun bay ka soo gaadeen waayo waqtigii ay dheer bay intay jidka soo socdeen waqtiga ku qaadatay kadib adigu intii ka gaadheen markii dambe dhakhtarka baa dhigay nasiib daro gabadh islaanta way dhimatay inta Jennifer hooyadeed aabeena ku muqalay kadib askartu waxay isku dayeen in inta information weydiiyaan ay ku raadaan sidee maxay sameeyeen saddexdii soo gaday mar hada adigu guriga qof khariij joogay waxay ku tiraaday wax ay guriga haba yaraatay xadeen ma jirin ayuu ku tiraaday anigu kaliya waxaan arkay inay hooyada ka xeen halka soo kaxiyeen iyo aabahay ay kadibna xabad la dhaceen askartu u qaadan waayeen tuu guriga soo dhacday hadana wax xadweeday oo qaliy u timaaday wax jira adigu sidii heed horta intayna u gin waxaan family-ga history-gooda sidii noloshoodii sidii u noolaayeen aynu ka sheekeynaa family-ga baan waxay ku noolaayeen dalka Canada kadib waxa dhacday baan horta ugu horeyntii qaxoontahan ayuu dalka Canada ku soo galay kadib waxa dhacday wuxuu shaqaystay kadibna shaqadii intuu waxbarashada shaqo isku waday waxa dhacday inay gabadh isbartaan kadibna gabadha markay isbarteen adigu iskuursadeen beeg ba gabadha la jiray kadib markay iskuursadeen waxa dhacday gabadhii masha Allah inay Jennifer la raado ay dhalatay kadib hadana waxa dhashay 6 sano kadib in kale adigu gabadhii iyo ninkii waxay ku iibsadeen guri iyo laba gaari nolol fiican bay ku noolaayeen kadib waxa dhacday oo odaga yar iyo gabadha waxay aad iyo aad focus saari jireen caruurta yar waxbarashadooda oo marna may dhici jirin caruurta yar xafladayo asxaabtooda saraacan markasta waxay focus saari jireen waxbarashadooda waxay ku jireen hadaa doonaysaan in waqtiga ku dayacdaan waxaad ku
waqti gelisa waxyaalaha ina anfacaya beri mustaqbalka ina anfacaya waxa waqti geliya adigu sidaas oo ahayd nolosha carruurta waxay u dhaxaysay school to guri waxay aad iyo aad ugu dadaali jireen waxbarashadooda maadaama ay duruufuhu aabuhu waxa aad u jeclaa weliba sida aabaha ayaa aad ugu socodkaa haddii kaan geli waayeen macalaa wuu ku xanaaqi jiray kaalinta koowaad markasta carruurta geli jireen kadib waxaa dhacday sidii nolosha isagu ahayd kadib waxaa dhacday in inantan maalin hore marka sana dugsiyada kasta xaflada la qabtaa kadib markii xaflad la qabtay sidii uu ka fadhiyay kaalinta koowaad geli jirtay kadib inantii kaalinta koowaad ma gelin ina kale kaalinta koowaad gashay kadib odayga waxaa dhacday iyagii xafladii lagu guda jiro inay iska kacaan labadii waalid aad iyo aad ugu xanaaqay adigu inantu way xabiseen gurigii ku xabiseen intii ay yacni waxay kama filanayeen kaalinta laga qaado adigu sidii say ahayd waxaa dhacday inantii jaamacadda way dhamaysay maasha allah shaqo fiican bay ka heshay dhulka degnaayeen dhakhtarka ugu waaweyn bay shaqo ka heshay inanka sidoo kale dalalka ayuu jaamacad buu kasoo diyaarinayay marka engineerina dhanka mekaaniga sidii sida ahayd xaafadii iska fiicnaayeen ayaa waxaa dhacday watan musiibadoodan soo korodhay waa tii dee lasoo weeraray waa tii labadii waalid xabad lagu qaraacay sidii sidan ahayd kadib oday yaraana ka koomay galay islaantiina way dhimatay sidii waa lagu aasay waxaa dhacday waxaa la weydiiyey inantiireedba askartii weliba maskaxdooda kala dheewaayeen guriga lasoo gaday aan waxba laga qaadaneyn adigu sidii ahayd inanta waxay markii maalin kasta waa la wareysan jiray maadaama ay ahayd iyadoo qofka khaliya wax arkay waxaa la itiraaday anigu dhakhtarka waxaan ooyinbaan badanka joogi jiray xaafadeeda ma jirinba maalintaas khaliya xaafadeeda joogay waayo waxay tiraaday saaxiibaday dhakhtarkan ka shaqeeya joogtay kadib saaxiibaday baan markaa la seexan jiray habeenkii ugu dambeyntii waxaa koomadii kasoo kacay aabiye kadib markii koomada kasoo dhowr cishanaystay ayaa looyarkii arrimahan kala waday xaafadda loo qabo weydiiyey wuxuu ku dhahay dee information buu kala qaada odayga intii uu imaankiisa soo jeeday kadib waxa uu dhahay odaygii ha rumaysanina inanteeda Jennifer uu yaabay ninkii sabab maxaa dhacday cumrigeeda nolosheeda intay ka dhimnada run anaga noo meeshay baby noo sheegsay kadib waxaa dhacday wuxuu dhahay kow secondary ma dhameen laba jaamacad ma dhameen saddex shaqo kama shaqeynay intiba markaan shaqadii horta anigu waxaan ku ogaanay wiilada shaqadeeda ka shaqeyso ayaan rabnay inaan ka xino kadib waxaan aragnay inayna waxyaalihii laga shaqeeyay dhakhtarka aan xinayn koodkii kadib waxaan bilownay inaan dabaqo ka sameeyno kadib sawirkeedii iyo magaceedii baan dhakhtarka intaan tagnay anigu tusnay magaceedii wixii leedahay haba yaraatee inan magacaa la yiraahdo dhakhtarka kama shaqeyso adigu marka dambe way ogaadeen inay been sheegayso way yimaadeen xaafadii inay weydiiyeen inay runta u sheegtay ku tiraaday kow iska darigeedii waan dhacay deeto waxaa ii suurtagal weeyay inay inagu raado waan dhacay waan ka baqday markaa waxaa ii suurta gashay inaan been ma sheego adigu inay runta wada sheegtay xitaa jaamacad ma dhameen iska darin ma dhameen shaqana kama shaqeynay odaygii wuxuu sameeyay aad buu u naxay labadii waalid kadib waxay sameeyeen inay inantii xabisaan ooy ilaa ay baxdo mooyaan markay ay meel ka maqal lagu tumo ay aad iyo aad ay xiisleen jirtay oo dadna bari jirtay markaas khaliin buu galan jiray inay baxdo ay soo barato ay dadkana barto mar kale inta kale guriga ku xinaa jirtay adigu waxa dhacday in hooyada aabad ku kula jirtay bariga shaqada ka shaqeyn jirtay saaxiibad balay gurigooda marka uu u jira xaafada taas markay iska dhig jirtay in shaqada jirtay habeenkii saacan jirtay tiina wuxuu dhaday adigu in saaxiibo la yiraahdo Thomasna haba yaraatay ma bijirinba oo wax saaxiibo ay lahayd ma jirin laakiin waxa jiray in la yiraahdo Daniel inaka si xaafadiisa loo naajiray inaka ka mamnuucay sababta ugu mamnuucna waxay ahayd wuxuu ahaa mukhaadaraadka iyo xashiishada iyo ganacsadooyinka ah saadaradeed saaxiibkeeda waa laga mamnuucay dadweynaantii inta loo kala fursad loo kala hadin ku baxda waxay mi aadi jireen meesha biyaanada ee ka maqal ku tumo laakiin saaxiibkeed gurigooda ay joog jirtay adigu sidoo ahayd ay waxa dhacday intii waxa looyarkii waa hadana odagii markuu ta ka qaaday intii uu tigay wareystay wuxuu ku dhaaday muu jira saaxiib Daniel la raadday intii ku tiraaday ha uu jira waa saaxiibka khaliyan ugu jecelahay maadaama qorsheeda waxa la ilaawan bay qabtay anoo maalin naqas ugu dhagan asna xiiq balahayd intuu ayuu inankaasi arkay inuu xiiqsan naqas ugu dhigsay dadku way caawiyay sidii ayaan isku baranay sidii saaxiibka aniga tiraaday deeto inanka markaas waa saaxiibka khaliya saaxiibadaha ugu jecel bay tiraaday kadib inantii waxay tiraaday laakiinse markii wax kasta laga mamnuucay ay wax kasta ku adkaadeen saaxiibkayga waxaan isku dayay inaan ka codsado
inuu isoo qaado isoo dayo dad idila oo lacag la siiya. deeto wuxuu dhahay waayo uu yiraahday wuu keenay. deeto markii dambe waxaan ka fikiray uu tiraahday inaan waxaan khalad yahay ku socdo dada deeto iska kansale nimankina waan hadda nimanka wixii tiraahday adigu markaan lacagta in si waayay aan wixii ka noqdo waxay isbilaabeen inay gaar goostaan ay xaafad imaadaan oo deeto halkaan iga dilaayeen ay waalid ka dilaan adigu sida waheed lawyer iska tagay maalinta dambe saaxiib Daniel buu yiri saaxiibkii Daniel halkaas oo halkii yaa ka banay markii Daniel loo yeedhay deeto waxa dhacday wuxuu ku dhaaday wax kasta oo sheegay Daniel tii uu yaa ka baneed waxay ahayd markuu dhaaday Jennifer hooyadeed iyo aabaheed soo niguma oran aniga halkii gad ilaahay wiiladu wada dilay oo been kow waxay iga cusbay inaan ma okeeno ay lacag siiso si ay hooyadeed iyo aabaheed xukunka saaray guriga xabsisay u dilaan oo irtaxdo laba been inay sheegtay telefoonadeedii waa kana baara telefoonadeedii markay dhigaraysay simkadii ku wada hadlayeen oo dhan ay askarta aragtay markii doonayay inay dilaan labada waalid kadib markii message-yadii la wada arkay boqolaalkii message-kooda sheekaysteen waxaa la gartay inuu qofka waxaan oo dhiga dambeeyay khayinka ee dilaaga ee mujrimka inuu tahay Jennifer nintoodii kadib loo xukumay waxaa lagu xukumay jeel mu'abbada oo weligood adood ku jiraan kadib inantii sidii baa lagu xiray xaafadii odag yara markuu bogsaday magaalada isaga tagay family-giisa iska noolaaday inuu sidoo kale markuu arkay xaafadiisii naxdintii wixii uu iska baxay magaalada inantina jeel mu'abbada sidii ku gashay sidoo kale inkii Daniel wixii saddexdii iyo Danielna isna waa la xiray. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. waxaan rajeen doonaa inaad ka heshaan sheekadan qisadan xaqiiqada dhacday. share subscribe like ee rajeen doonaa sameysaan. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. You want your two, this is my baby.